السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkeena maanta waxaan ku baran doonaa graphics loo yaqaano Nvidia kaasoo ku yimaado haddii uu ahaan lahaa desktop ama laptop. Nvidia waa GPU ku xirma kombiyuutarka kaasoo awood gaara u samaynayo performance-ga iyo aragtida kombiyuutarka. Haddii uu ahaan lahaa editing iyo sidoo kale gaming. Sometimes waxaa hoos iman karo dhinaca design-ka sida Photoshop iyo Adobe Illustrator. Waxaan u kala qaadi doonaa 5 qaab. Magacayga waa Cabdiweli Maxamed, halkaad inagala socotaana waa Pro Production Challenge Everything. Qaybta koowaad. Ugu horeyn inaan ogaano kombiyuutarkeena inuu leeyahay Nvidia iyo in kale. Si aan ku ogaano, waxaad soo qaadaysaa muuskaaga, kadibna waxaad dul tegaysaa calaamadda Start menu. Haddii uu ahaan lahaa Windows 10 ama Windows 11. Right click ayaad leedahay calaamadda Start menu-ga. Kadibna waxaad ka dooranaysaa meeshaan ay ku qoran tahay Device Manager. Click ayaad ku siinaysaa, isla markii waxaa kuu soo baxayo properties-ka ama qaybta device-ka kombiyuutarka. Haddii uu ahaan lahaa kombiyuutarka inuu driver ka maqan yahay iyo in kale. Markii aad joogto qaybta halkan, waxaad halkan ka raadinaysaa meel ay kugu qoran tahay Display Adapter. Ishaan ayaad furaysaa, kadibna halkan waxaad ka raadinaysaa in wax driver update uusan u baahnayn iyo inuu u baahan yahay. Qaybtan markii aan furnay qaybta display-ga, waxaan ku arkaynaa inuu inoogu jiro Nvidia. Haddaba Nvidia hadda anaga inoogu jiro waa Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Waxaan ogaanay qaybta koowaad in kombiyuutarkeena uu leeyahay Nvidia. Qasab maahan haddii aad furto halkan kadibna uu kuu soo baxo Intel kaliya oo aadan Nvidia lahayn, waxaad ogaataa kombiyuutarkaaga inuusan ku imaanin Nvidia. Haddii uu leeyahay AMD, iyadana muuqaal kale ayaan ka soo diyaarin doonaa insha Allah. Qaybtan koowaad waxaan ku ogaanay kombiyuutarkeena inuu leeyahay Nvidia. Qaybta labaad, waxaan rabnaa inaan ogaano in kombiyuutarka uu u baahan yahay update iyo in kale. Waxaad tegaysaa calaamadda Start menu-ga halkaana. Right click ayaad leedahay, kadibna waxaa halkan ka raadinaysaa meel ay kugu qoran tahay Setting. Click ayaad ku siinaysaa, kadibna waxaa kuu soo baxayo dialog box-ka ama interface-ka loo yaqaano Windows 11. Waa isku mid haddii aad isticmaalayso Windows 10-ka. Meel ay inoogu qoran tahay Windows Update. Click ayaad ku siinaysaa, kadibna waxaa kuu soo baxayo interface-ka caadiga ah ee qaybta updates-ka. Waxaa hubinaysaa halkan ayaad waxaad ka dooranaysaa si aad u hubiso kombiyuutarkaaga inuu update u baahan yahay iyo in kale. Haddii uu ahaan lahaa graphics-ka ku yimaado kombiyuutarkaaga iyo dhammaan chipset-ka ku yimaado kombiyuutarkaaga. Inta waxa ay qaadanaysaa in ku filan internetka aad haysato. Haddii xawaaro sare uu leeyahay internetkaaga, driver-ka waa uu ku shaqeynayaa. Automatically waxaa arkaysaa inuu soo qabtay hal update, balse uu yahay Windows Defender-ka qaybta antivirus-ka, balse ma ahan midka Nvidia-ha. Waxaan ogaanay inuusan kombiyuutarka uusan u baahnayn wax update dhinaca graphics-ka qaybtiisa Nvidia-ha. Qaybta saddexaad, waxaan hubin doonaa Nvidia-ha inoogu jira kombiyuutarkeena in update-kiisa uu yahay update-ka ugu dambeeyay iyo in kale. Si aan u hubino, adigoo taagan desktop-ka ayaad leedahay right click. Haddii aad isticmaalayso Windows 10 iyo Windows 11, labadaba waa isku wado, balse markii aad isticmaalayso Windows 11-ka waxaa u baahan tahay inaad doorato halkan ay ku qoran tahay Show More. Show More ayaan dooranaynaa, waxaa kuu soo baxayo qaybtan. Haddii aad tahay Windows 10, waxaa kuu soo bixi doono dialog box-kan. Kadibna halkan waxaad ku arkaysaa inay inoogu qoran tahay Nvidia Control Panel. Click ayaad ku siinaysaa, kadibna waa aad suganaysaa oo wuxuu soo baxayo popping up-ka ugu horeeyo ee License Agreement-ga. Kadibna halkan ayaad waxaad ka dooranaysaa OK. Isla markiiba waxaan sugnaa inuu inoo soo kaco kombiyuutarka Nvidia ku xiran driver-kiisa qaybta Control Panel-ka. Waxaan rabnaa qaybtan inaan hubino inuu driver-ka uu yahay driver-ka ugu dambeeyay iyo in version ka dambeeya uu jiro.
halkan waxaad ka fiirisaa versionka waxaa arkaysaa inuu yahay 517.00. waana arkaysaa NVIDIA inuu yahay NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. way dhici kartaa versionkaad adigu isticmaalayso inuu ka duwan yahay ama ka sareeyo ama uu ka hooseeyo. intaan markaa sida tan u taagannahay waxaan ogaanay versionkan isticmaalayna inuu yahay 517. waxaan ogaanay versionkan inuu yahay versionka waqti xaadirkaas inoogu jiran kombiyuutarka. waxaan rabnaa marka qaybta afraad waxaan ku qaadan doonaa sidee ayaan ula soo degi karnaa ama aan u hubin karnaa versionkan isticmaalayna inuu yahay version hore haddii ay jirtana inuu jiro version dambe si aan ula soo degno. kan sida tan ha inoogu kacsanaado. waxaad soo qaadaysaa muuskaaga kadibna waxaad raadinaysaa browserka kugu jiro kombiyuutarkaaga. anagu hadda waxa inoogu jiro Microsoft Edge. haddii aad jeceshahay inaad isticmaasho Chrome ama Firefox kaliya halkan ayaa searchingka ku dhufanaysaa kadibna waxaad ku qoranaysaa Chrome ama applicationkii aad markaas isticmaasho. inkastoo aniga uusan ahayn favorite-kayga waxaan dooranayaa midkan ay ku qoran tahay Microsoft Edge. click ayaan ku siinayaa. waxay noo soo furmay interface-ka ugu horeeya ee Microsoft Edge-ka. qaybta kore waxaad ka raadinaysaa meesha lagu qoro ama meesha la geliyo linkiga ama waxyaalaha aad u baahan tahay inaad raadiso. halkan ayaan waxaan ku qoraynaa NVIDIA. intaan markii aan dhahno kadibna waxaad leedahay enter. ugu horreyn waxay noo soo baxayo NVIDIA website-yadooda kala duwan iyo xayeysiinadooda. waxaan kaliya ku dooranaynaa waxay tahay meeshan ay ku qoran tahay official driver. click ayaad ku siinaysaa kadib waxa kuu soo baxayo website-ka driverka si toosa loogu soo degsanayo. haddaba anaga waxaan ogaanay driverkan isticmaalayna inuu yahay GeForce. waa u jeedaa halkan waxaa inoo dooran GeForce. haddii aad furto waxaad ku arkaysaa waxyaalo kaloo aad u duwan kaasoo soo saarto kambaniga NVIDIA qaybteeda GPU-ga diyaariya. waxaa arkaysaa inuu halkan inoogu qoran yahay GeForce. waa aan dooranay. waxaa halkan ku arkaysaa inay kugu qoran yihiin ama ay kugu qoran tahay Protect Syria kaasoo lagaa raba inaad ka doorato modelka ee markaas ku xiran kombiyuutarkaaga haddii uu ahaan lahaa laptop ama desktop. ishaan ayaad furaysaa kadibna waxaad ka dooranaysaa modelka versionka kugu jira kombiyuutarkaaga. haddii uu yahay laptop waxaad dooranaysaa midkan ay ku qoran tahay GTX 1660 Series Notebook. haddii uu yahay mid ku xiran kombiyuutarkaaga desktopka waxaad dooranaysaa midkan ay ku qoran tahay GeForce. saas darteeda marka maadaama anaga aan isticmaalayno laptop waxaan dooranaynaa midkan ay ku qoran tahay GTX 1660 Series. labadanba waa isku mid wax version u dhaxeeya ma jirta. midka kan loogu talagalay kan waad ku isticmaali kartaa, midka kan loogu talagalayna kan waad soo degsan kartaa. waa isku mid. anagu waxaan ilaalinaynaa sharciga. waxaan dooranaynaa midka caadiga ah ee loogu talagalay laptopka. kan ayaan kale ku siinaynaa. markii aan ku siino isla markii waxaa arkaysaa qaybta protectorka inuu kuu keenayo GeForce GTX 1660 Ti. haddii aan dhahna isha ayaan furaynaa waxaa arkaysaa inuu ku jiro 3 model. modelka koowaad oo ah 1660 Ti oo ah midka aan anagu hadda isticmaalayno. sidoo kale waxaa arkaysaa 1650 Ti. sidoo kale 1650 oo Ti aanan lahayn. anagu hadda waxaan ka dooranaynaa midkan. mar walba hubi kombiyuutarkaaga NVIDIA saxda ah ee ku jirta. kadib waxaad furaysaa meeshan ay ku qoran tahay operating system oo ah Windows-ka aad isticmaalayso. haddii aad soo degsato Windows 10 ama Windows 11 labadaba waa isku driver. haddii aad soo degsato Windows 10 uuna kugu jiro Windows 11 waa isku mid oo waad ku shuban kartaa. haddii aad isticmaalayso Windows 11 oo aad soo degsato driverka Windows 10ka waa isla mid. wax version u dhaxeeya ma lahan. anagu hadda waxaan dooranaynaa Windows 11ka. kadibna halkan waxaa ku yaala aad arkaysid download tape. haddii aad jeceshahay inaad soo degsato ama aad ku isticmaasho kombiyuutarkaaga gaming ahaan waxaad dooranaysaa midka gaming ay ku qoran tahay. sidoo kale haddii aad tahay qaybta sida caadiga ah ama editing ama waxyaalo noocaas quseeya waxaad ka dooran kartaa midka studio ah. laakiin labadooda wax version oo farqiya u dhaxeeya ma lahan. saas darteeda marka anaga waxaan dooranaynaa midka studioha.
luuqadii aad u baahan tahay halkan ayaad furaysaa, language-kaad isdhihi karto waad u baahan tahay ayaad halkan ka dooran kartaa. laakiin anagu waxaan dooranaynaa English United States. Kelig ayaad ku siinaysaa, kadibna waxaad leedahay search oo ah raadi. kadib waxaad arkaysaa inuu inoo keenayo inaan soo dooranay NVIDIA Studio Driver. sidoo kale versionkan aad ku arkaysid inuu yahay 536.40. waxaan u malaynayaa midkii haday aan arkaynay inuu ahaa versionka markaad labadan isbarbar dhigto waxaad ogaanaysaa in update-ka markaas uu ku yimid computerka inuu ka duwan yahay midkan ee aad ka soo degsanaysid internetka. saas darteeda marka maadaama uu jiro update-kan isticmaalayna mid ka dambeeyo uu jiro waxaa qasaba inaan soo degsano update-ka ugu dambeeyo. waxaa arkaysaa operating system-ka ama date release-ka ama xilliga la soo geliyay inuu yahay 2023 bisha 6 29keeda. waxaa halkan ku arkaysaa operating system-ka inuu isku mid ka yahay Windows 10 iyo Windows 11 labadoodana ay ka siman yihiin 64-bit. sidoo kale halkan waxaa ku arkaysaa language-ka aan dooranay inuu yahay English. file size-kana aad ku arkaysid inuu yahay 653 megabyte. haddaba waxaan samaynaynaa halkan ayaa waxaan ka dooranaynaa download. haddaba qaybtan download-ka markii aan joogno kaliya waxaa inoo dhiman inaan doorano halkan ee download-ka ah. inta aanan dooranin adigu ahaantaada haddii aadan isticmaalin IDM waxaad isku daydaa inaad la soo degto IDM. muuqaalka aad daawanaysid hoostiisa ayuu yaalaa qaabka loola soo degi lahaa loona isticmaali lahaa. anagu hadda waxaan furanaynaa IDM-ka. IDM-ka markii aan furano kadib waxaan ka tegaynaa qaybta ah setting, kadibna waxaan ka tegaynaa connection waayo waxaan rabaa inaan kordhisto awoodda uu markaas ku heli karo qaybta connectionka ama seediska. okay ayaan leenahay, waad u jeedaa 32 ayaan ka dhignay. okay ayaan leenahay, kadibna kana waan iska xireynaa uma baahnin. qaybtan kore ayaa waxaa ka dooranaysaa download. haddaba download markii aan doorano boxkan marka ugu horeysa IDM-ka su'aashan ayuu ku keenaa waa caadi, close ayaad iska dhihi kartaa. kadibna browse ayaad leedahay, waxaad u tilmaamaysaa booskii aad u baahan tahay inuu kuu dhigo. anagu ahaan hadda waxaan u tilmaamaynaa inuu inoo dhigo desktop-ka. kadibna waxaan leenahay okay. sidoo kale halkan waxaan ka dooranaynaa start download. waxaa arkaysaa inuu yahay 653 megabyte uuna inoogu soo degayo in ka yar 1 daqiiqo. waxayna ku xiran tahay internetka aad adigu isticmaalayso. programkan inta inoo soo degayo waxaan rabaa markii inaan soo dejino program kale. waxaa ku laabanaysaa qaybtaadii hore ee browserka, kadibna new tab ayaa furanaysaa, kadibna halkan ayaa waxaa ku qoraysaa 7zip. 7zip markaa sidaas ugu qorto kadibna waxaad leedahay okay. waxa ugu horeeya aad arkaysid waa 7zip, kadibna halkan waxaa ka dooranaysaa download. download markii aad tiraahdo qaybta kore ayaad sii dooranaysaa ama qaybtan oo ah Windows-ka ama qaybta downloadska caadiga ee halkan inoo yaala. kaliya ayaad siinaysaa waxa inoo furmaayo browserka. kan waan iska minimize gareynaynaa. okay waxa ugu horeeya aad soo degsanaysid waa midka ugu horeeya ee ku qoran tahay Windows-ka. kan ayaad kaliya ku siinaysaa, kadibna waa uu ku soo degayaa. waa arkaysaa way inoo soo degay, kadibna waxaan u tilmaamaynaa desktop-ka. haddaba labada software ee ugu muhiimsan waa inoo soo degeen. waxaan rabnaa marka qaybtan driverka halkan aad ku arkaysid inaad indhaha ku hayso ama aad xasuusnaato versionka uu inoo yahay waa 517 versionkiisa ah. waan iska xireynaa kan. okay waxaan u maleynayaa marka inaan soo degsanay midkan iyo midkan. waxaan sameynaynaa marka midkan ayaan ku shubanaynaa. annaga hadda way inoogu jiraa balse adigu waxaad samaynaysaa double click, kadib su'aashan ayuu kuu keenayaa, kadibna waxaad leedahay yes. kadibna waxaad leedahay install. automatically computerkaaga waa uu ku shubmay. waa failure laakiin muhiim badan qabanayo. waxaad samaynaysaa marka driverkan way kugu adkaanaysaa inaad mar walba soo dejiso. waxaad banaanka ku samaysanaysaa new folder. location-kii aad u baahan tahay waad u tilmaami kartaa, balse hadda anaga waxaan dhiganaynaa desktop-ka. markii aan hawsha ka dhamaysano meeshii aan rabno waa aan geysan karnaa. waxaan ognahay driverkan ama folderkan inaan ku shubi rabno NVIDIA 1660 Ti driverkiisa uu yahay. waxaa ogaataa hadda in folderkii uu diyaar inoo yahay. waxaad furaysaa midkan ee ku qoran tahay NVIDIA-ha. sida uu yahay double click waad ku samayn kartaa, sida caadiga waad ku isticmaali kartaa, balse waxaa muhiim ah in failkan extractigiisa uu ka cunayo computerkaaga.
faylkii uu soo degay ayaad right click leedahay. right click markaad tiraadid qaybtan waxaa ku arkaysaa show more option. click ayaad ku siinaysaa waa haddii aad isticmaalayso Windows 11ka. waxaa halkan ka raadinaysaa waad u jeedaa double click ee aan siina ee hadda inoo soo baxay. marka sida tan uu yahay okay waad ku dhihi kartaa yes, waa arkaysaa destinationka meeshuu u baahan yahay ayuu dhiganayaa. saas darteeda marka anaga local C ma raba inuu ii dhigo ee waxaan rabaa inaan u tilmaamo folderka halkaana. kan waan iska xireynaa uma baahnin. waxaad dul tagaysaa midka aan soo dejinay, right click ayaad leedahay. kadibna halkan waxaa ka dooranaysaa show more waa haddii aad isticmaalayso Windows 11. kadibna waxaa halkan ka arkaysaa 7-zip. haddii aad isticmaalayso Windows 10ka automatically right click markaad tiraadid kan ayaa kuu soo baxaayo. waxaad ka dooranaysaa midkan ay ku qoran tahay 7-zip. halkan waxaa ka sii raadinaysaa meel ay noogu qoran tahay open archive. click ayaad ku siinaysaa, waxaa kuu soo furmaayo download boxkan. download boxkan aad halkan ku arkaysid waa inta ku jirto qaybta halkaana. dhammaantooda highlight waa saari kartaa. sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad halkan ka tiraahdo extract ayaad leedahay. kadibna waxaad u tilmaamaysaa booski aad rabtay inuu kuugu shubo. halkan waxaad ku arkaysaa inuu inoo yaalo folderkan ayaan usoo tilmaamaynaa oo waxaan tegaynaa desktopka. waxaa halkan ku arkaysaa Nvidia. weli anaga kuma aanan shuban Nvidia, laakiin qaabkan waa qaabka ugu fiican ee aad kombiyuutarkaaga Nvidia sida saxda ah aad ku shuban karto. folderka ayaan u tilmaamnay, kadibna waxaan dhahnay okay. waxaa arkaysaa inuu extract samaynayo kuna shubayo folderkan. okay, waxaa arkaysaa inuu halkan inoo dhigay. qaybtii afaraad sidaas ayay noogu eg tahay. waxaa inoo soo haray qaybta shanaad oo aan ku baran doonno waa aan soo degsanay kadib maxaan samaynaynaa. waxaad samaynaysaa sida soo socota. waxaad furaysaa folderkii aad extract ku samaysay ee aad soo gashatay feelashii markaas quseeyay qaybta Nvidia-ha. double click aad siinaysaa, kadib waad arkaysaa folder ay ku jiraan waxyaalo badan. kadib qaybta ugu hooseeya ayaad tegaysaa. halkan waxaad ku arkaysaa setup. double click ayaad siinaysaa, wuxuu kuu keenayaa user account controlka. kadibna waxaad leedahay yes markaad tiraadid automatically waxaa arkaysaa driverka aan ku shubayna versionkiisa inuu yahay 536.40 waa midkii aan ku soo arkaynay qaybta website-ka. waxaa arkaysaa qaybtan inuu kuugu samaynayo jacking. haddii ay dhacdo inuu jackingkan kuugu soo celiyo driverka aad soo degsatay ma ahan Nvidia-ha markaas saxda ah ee ku yimaaday kombiyuutarkaaga. haddii ay dhacdo inaad driver kale iska soo degsato ee aad ku shubatana waxaad ogaataa inuusan kuugu shubmaynin haddii uusan kombiyuutarkaaga Nvidia-na uusan ku xirnayn. sidoo kalena Nvidia-ha kuugu xiran model numberkiisa saxda ah aadan aqoonin. anaga hadda midka aan isticmaalayno waa midka saxda ah. automatically waa uu ka gudbi doonaa, waad arki doontaa. kadib wuxuu bilaabi doonaa license agreementiga ayuu inoo keeni doonaa. automatically waad arkaysaa system jagga uu sameeyey waa ku guuleystay. wuxuu ogaaday inuu kombiyuutarkan ku jira Nvidia. waxaa inoo soo haray license agreementiga. tigta waxaa saartaa midka ugu qoreeyo ee ku qoran tahay Nvidia graphic driver and GeForce experience. midkan kore ayaa ka dooranaysaa, kadib waxaad leedahay waan ogolahay. kadib wuxuu kuu keenayaa labadan su'aal. inta badan ka dooro midka qaybta kore ee ah expresska. sida uu yahay ayaad leedahay next markaad tiraadid automatically waxa uu kuu bilaabi doonaa driverka installationkiisa. waad arkaysaa halkan waxaa ku qoran preparing for install. waa arkaysaa marka inta uu ka shubayo waad u sugaysaa. haddii aad kafee soo cabi kartid, haddii aad soo baashaali kartid, sababtoo ah faylka markii aad fiiriso size-kiisa waxaa arkaysaa inuu yahay 2.51 GB ayaad ku arkaysaa, ku dhow 2.6 waad arkaysaa. marka inta uu ka dhammaynayo waad u sugaysaa. markii uu dhammeeyo asigaba kuu keeni doono finish oo ah waa uu dhameeyey. waa arkaysaa installing driverka ayuu bilaabi doonaa. installing driverna waxaa ku xigi doono midkii kale ahaa experience-ga. inta uu ka dhammaynayo waan u sugaynaa si aan u hubino driverka markaas koodii horen isticmaalaynay iyo midkii dambaan isticmaalnay inuu si saxa inoogu shubmay iyo in kale. okay, ugu dambeyn waa inoo dhameeyey. maxaan samaynaynaa marka? qodobka koowaad waxaad samaynaysaa faylkan ayaan extract gareynay oo aan ku shubanay folderkan ayaad qaadan kartaa. kombiyuutarkaaga meel ka mid ayaad gashan kartaa ama external hard drive ayaad ku shuban kartaa haddii aad diidan tahay inaad beri kamaale aad soo dejiso. fiiro gaara marka waxaa muhiim ah inaad ogaato driver walba waxaa la update gareeyaa
hal bil ama 2 bilood. 2 bilood walba driver cusub ayaa soo baxo, waxaana qasaba inaad gasho qaybta browserka, kadibna sida aan ula soo degno qaybtan sidoo kale aad ula soo degto. ugu dambeyn marka waxaan sameynaynaa inaan hubino in driverka aan ku shubnay inuu sax yahay iyo in kale. haddii aad isticmaalayso Windows 10ka, right click ayaad leedahay, waxaa arkaysaa meeshaan inuu inoogu soo baxay NVIDIA Control Panel. balse haddii aad isticmaalayso Windows 11ka, right click ayaad leedahay, kadibna halkan waxaad ka raadinaysaa Show More Options. click ayaad ku siinaysaa, kadibna waxaa arkaysaa NVIDIA. click ayaad ku siinayna, kadib waxaan laga rabaa marka inaan hubino versionka ee markaas aan ku shubnay before iyo after. waxaa arkaysaa before inuu inoo ahaa sidan, balse after aan ka dhignay versionka 536.40 oo ahaa midka aan waqti xaadirkaas aan la soo degnay. qaabkan waa qaabka ugu fudud ee aad kombiyuutarkaaga NVIDIA-ha GPU-ga ku yimid kombiyuutarkaaga aad ugu update gareyn karto, sidoo kalena driverka aad soo degsatayna aad meel gaara u dhigi karto. haddii aad hesho kombiyuutar kalena aad ku shubi karto. ugu dambeyn, waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo cashirkeena xiga. anigu waxaan nahay qofkii ku baray, adiguna waxaa tahay qofkii bartay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.